بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم maantay oo ay taariikhdu tahay labadii bishii tobnaad October 2024 waxaanan halkaan u imid oo aan jecelahay inaan baaq nabadeed aan guud ahaan uga soo jeediyo Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha gaar ahaan aan u soo jeediyo dagaalka ka socda u dhaxeeya walaalaha reer Xeraale iyo walaalaha Caabudaq iyo Balambal iyo Huurshe qaasiyatan Qalanqalle iyo Laandheer baaqaygu maanta waa baaq nabadeed waxa weeye waa ehelnimo waxa weeye waa andir cashiirata kal aqrabiin weeye waa ehelkaygii iyo walaalahaygii iyo dadkaygii waa midigtaydii iyo bidixdaydii waxaan marka hore rabaa inaan u soo jeediyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta waxa ka socda dagaal ehel ah waxa ka socda kugu dhimay oo ka dhimay waxa ka socda wax qofkii damiir lahu uu ka xanuunsado qofka muslimka oo qof kale oo muslim dila waxa weeye waa alqaatil wal maqtul fi an-nar no justification whatsoever ma leh wax haba yaraatee cudurdaara ma leh walaalaha muslimiinta ee Soomaalida ee laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku abtirsada oo dadkii la dhihi jiray Soomaali Maxamed baa la dhihi jiray marka Maxamed la leeyahay waa Soomaali Nabi Maxamed dad maantayto waxa weeye muslimiina oo boqolkiiba boqol muslima oo boqolkiiba boqol sunni ah oo isku abtiris ah oo hal waxa weeye meel ka soo jeeda walaalayaal xaq uma laha inay isdilaan waa ayaan daro qof jecel Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo quraanka kariimka jecel kalaamullaahi jecel oo muslim ah oo fariintii nabiga calayhi salaatu wasalaam xajkii ugu horeeyay uguna dambeeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii uu naga mamnuucay waxa ahayd maalkeena iyo dhiigeena haddaad nabiga jeceshahay calayhi salaatu wasalaam walaal hadilin qof kale walaalka muslimna haddaad diinka aad jeceshahay oo kalaamullaahi aad jeceshahay walaal ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق حرب الأهل كني وحن عذاب إيو ضد الآن أنا هاي لقى دحليو قاسها وحن ربا جودهان from east to west north to south وقوي إيو كوفر إيو وحوي قلباتك إيو قرح سيمبا وحكسوا على الدجال أيام دراء وحن قبا يا شعبك الصوماليات ولله كبقى war ilaahay ka baqa war kutubkiina u noqda war ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa war waxa weeye xarbul ehelkan waxa weeye 33 sano 1991kii isdilkii iyo dhibaatadii ka dhashay iyo anakiigi wuxuu dhaxlay in waxa weeye dadkayga qaxaan in dadkii boqolkiiba boqol muslimka ah laga helo gaalo in laga helo waxa weeye qoomuluud in laga helo dad bahalkii laba dhigla ah war walaalayaal wixii ay noo geysatay dagaalku what is the outcome isdhamaysay maxaa dhaxasheen walaalayaal ilaahay ka baqa dadka Soomaalida ummadda Soomaaliyeed war qabyaalada joojiya qabyaalada xataa mas'uuliyiintii maanta ay ku dhawaaqayso oo dhalinyaradii miidiyuhu ay caado ka dhigteen oo dadka lagu kala qaybinayo oo la isku dirayo oo wiil yar oo YouTuber fidna uu sameeyay boqolaal ay ku dhimanayso war waxaan baahay war ilaahay u soo noqda shacabka Soomaaliyeed ilaahay u soo noqda dalka fara kuma jiro dalka maanta maalintii ugu xumayd buu maraya Soomaaliya maalin ay ka daran tahay filimaayo nolosheeda taariikhda qoraabanahay inay soo martay filimaayo asagii
siyaasaddii baa lagu kala tegey diintii baa lagu kala tegey dadnima waxa weeye jufa jufa laysku sii cunayaa war walaalayaal ilaahay u soo noqda intaas waa Soomaali weyn aan u soo noqdo dagaalka Xaradheer iyo Qalanqalle iyo Huursho iyo Xeraale iyo Balanbal iyo Caabudwaaq iyo Dhabbad walaalayaal waa ayaan daro dadkii la ogaa oo abtiga iyo wiil iyo waalidkiis ahaa isku sheekh ahaa Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim wuxuu ilaalin jiray 5 magaalo iyo dadkeeda iyo tuulooyinka hoos yimaada waa Dhuusamareeb waa Gurceel waa Caabudwaaq waa Balanbal waa Xeraale waa bahalkii hadee la ku rooyahay Cadaado ummadaasu macallimiintooda ugu waaweyna oo Qur'aankana macallin Aadan macallin Daawud iyo macallin Daawud Sheekh Cumar Rooble iyo macallin Nuur Cilmi Cawaale iyo Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim iyo waxa weeye raggaasay ahaayeen waxay isla ahaayeen reer Sheekh Cali Samatar dad isku sheekh oo isku hal macallin ah oo waxa weeye kii aan xataa aan cilmiga aan aqoon ama quraanka loo soo dhigay kii aan quraankana loo soo dhigin cilmigana aan akhrisan hooyadii uu mehriyay sheekhaas oo aabihi hooyadii isku daray dad walaalo ah oo caqiidada ku walaalo ah oo ehelka ku walaalo ah waa ceeb meelaan waxba oolin waxba aysan oolin inay isku dilaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaalayaal waxaanu idinka filaynay talaabadii Sheekh Daawud Xirsiye ay qaadeen talaabadii walaalihii reer Caabudwaaq ay qaadeen ee Huursho markii labada wiil iyo gabadha ay keeneen boqolka oday ay ku keeneen culimadu ay ku jirtay ee la yiri gaarigii waxa weeye ay wateen wiilashaas xagati yar baa gaartay hal laga bedelo gaari kale oo cusub loo gado ee la yiri xabadii laga koriday xaala laga bixiyo ee la yiri waxa weeye la soo galbiyay walaalayaal saasa la idinka filayay saasay ahayd saasa markii laba qolo isdishaba waxa lagu qaadi jiray digri salaanta Allahumma salli wa sallim ala habibi Muhammad alayhi salam iyadoo waliba bishii mawlid lagu jiro oo bishii waxa weeye khaatimun nabi bishii waxa weeye raxmadii Ilaahay uu u keenay ifka bisheedii lagu jiro mawlidii barakaysanad waxay ahayd talaabada nabadda in lagu qaado nabadaas la keenay walaalihii kale reer Xeraale markay qaateen walaalayaal duulaanka kale waxa weeye wuxuu ahaa nasiib daray ahayd waxaan ka codsanayaa oo aan halkaan uga mahad celinayaa in allaale iyo intii effortka ku bixisay waxaan culimada ahlu sunnah wal jamaa iyo dhammaan aqoon yahanada waxaan idin leeyahay dawladdu shacabkeeda way ka adag tahay waxaan idin leeyahay ha kala raacinina ha ku kala milminina fadlan adinkoo xaqa dardaaraya ha leedin dilo waxaan rabaa inaan halkaan u sheego walaalaha reer Caabudwaaq iyo walaalaha Balanbal anigu waxaan rabaa inaan ka soo dago hadii Ilaahay idmo mar dhow meesha la yiraahdo Caabudwaaq biidhnillaahi alkariim aniga idila hadii nabad lagu helayo aniga halay dilo hadii nabad lagu helayo walaalaha reer Xeraale waxaan leeyahay bilaa calaykum ilaah baan idinku dhaarshay raggay sidii la ogaa yeelay ee boqolka nin ahaa ee labada wiil keenay ilaah baan idinku dhaarshay dil ma u quurtiin alaysa minkum rajulun rashiid war miyaadnaan ikhyaar lahayn war see ku dhacday in wiil ma jirto ma aamini karo dagaalka aad aragteen oo boqolaalka ku baxayso ayaa waxa wada wiil yar oo Mooryaan waa beentaas cid laga gadi karo iyo cid waxa weeye laga yeelayana ma jirto dagaalkan waxa wada
dadka waxa weeye waxa wada siyaasiyiinta wada waxa wada dadka iliidka ah wada waxa wada madax dhaqameedada wada war daacad ka noqda ilaah baan idinku dhaarshi dadkii aad siyaasadda waxbaa lagu nooleeyaa wax laguma dilo war dadkii aad maantayto war dadkii ayaan daray ugu tahay aad baan uga xumahay ragaan ogahay oon la hadlay oo raba berito inay madaxweyne ummadda u noqdaan oo raba inay bahalkii deel ku rayaan prime minister ay noqdaan oo raba inay bahalkii madaxweyne ku-xigeen noqdaan oo raba inay berito wasiir noqdaan aad baan uga xumahay aad iyo aad baan uga xumahay inay u soo bixi waayaan wax ka qabasho la'aanta dadkooda masaakiinta ee waxa weeye ceelka isku dirirahaya oo ayagu isku ah waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil oo kala cadaawadeedu kala ku dhaxmartay because of ceelka geelu ka wada cabayo aad baan uga xumahay inay soo bixi laayaan waxaan halkan aad iyo aad uga xumahay xildhibaanada labada dhinacba khaasiyatan waxaan halkan uga soo jeedinayaa dhaliil weyn Cabdishakuur Cali Mire Cabdishakuur Cali Mirow waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo meesha aad joogto regionkaas galgaduud baa la dhihi jiray waqtigii dibitaatiyada Sheekh Yuusuf baa loo yimid Sheekh Yuusuf wuxuu yiri waxaan rabnaa dad loo duceeyo oo xildhibaano dibitaatiyada noo gala wuxuu faatixada u maray raximahullah aadan low iyo salaad booy buu u galay ayuu faatixada u maray iyaga nagu matalayay hadda adiga teeramkan aad timid kii ka horeeyana Cabdiwaaxid Goonjeex iyo Cabdi Shire Cayaar Jecel yaa nagu matalayay waxaan aad uga xumahay inaad xataa xildhibaan qaran baad la rabay inaad noqoto kutubka ku martay inaad xataa xildhibaan galmudug aad noqon weyday laba nin berigii dagaalada sokeeye ay jireen ayaa laba nin oo waxa weeye raggii xukunka isku haystay ayaa BBC waxa laga wareystay media laga wareystay social media yani idaacad baa wareysatay ninkii buu caayay nin xun weeye baalkii deel ku ninkaasuu waa jaahil waa dictator waa macangag waa nin waalan haye hebelo waa maqlaysaa baa la yiri ma raba inaan hadda magacooda sheego walaalkay wuxuu kamid yahay la yiri kuwaan waxay rabeen inuu asagana caayo walaalkay wuxuu kamid yahay kuwa aan xaquuqdooda raadinayo marka wuxuu yiri waxba iima dhibayaan Cabdishakuur Cali Mirow miyaynan ahayn inaad xildhibaan qaran aad u dhaqato haddaad xataa xildhibaan qaran noqon weyday xildhibaan deegaan ma noqon weyday deegaan doorashadaadii galmudug xataa ma noqon weyday waxaan rabaa xildhibaanada federaalka iyo kuwa galmudug labaduba in ay waxa weeye arrintan wax ka qabtaan inay arrintan wax ka qabtaan iyagaa loo soo doortay iyagaa maantayta xilkii haya iyagaa kutubkii quraanka ku dhaartay waxaan rabaa inay isku yimaadaan waxaan ka codsanayaa inay isku yimaadaan waxaan ka codsanayaa inaysan la kala jirsan shacabka dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta ku kala nool Balambal iyo Xaraale iyo Caabudwaaq iyo Huurshe iyo ku kala nool warkii berito dalka idin la difaaci lahaa iska dilinina war walaalaha reer Caabudwaaq waxaan leeyahay walaalaha reer Caabudwaaqow war maanta maalinta dagaalami lahaydeen ma aha gobol baa leedin siiyay waxa la rabay dadka wal mu'allafatu quluubahum inaad ku soo wadatiin waxa la rabay inaad dadka soo dhaweysiin waxa la rabay 11 qabiilood oo degan galmudug inay maanta Caabudwaaq iyo Balambal sida Dhuusamareeb iyo Cadaado iyo Gurceel ay u tahay inay u tahay bay ahayd sida argada Cadaado kale waxay ahayd inaan la kala xigin inaad wal mu'allafatu inaad dadka isku soo jiidatiin gobol baad noqoteen gobol baa la siiyay ummaddu inay idinku soo hirtay ahayd maanta maalinta dagaalami lahaydeen walaalayaal ma aha walaalaha reer Xaraale wax kasta oo dhalinyaro idinku samayso boqolkii nin iyo culamaa u diinkii iyo talaabadii ay qaadeen kulliqa nabadda raadiya nabadda qaata waxaan idinka codsanayaa inaad diyaaradaha furtiin inaad ayraboorada furtiin inaad ayraboorada qof jiran mid umalaysa mid waxa weeye dhal weyday mid dhaawaca mid waxa weeye mariilka iyo masaakiinta iyo shacabka
meelihii caamka ahaa weeye in aad furtiin biduuni shuruud. walaalayaal waxaan idinka codsanayaa wax kasta oo na kala fogeynaya walaalaha reer Xeraalow inaadnaan qaadin walaalaha Caabudwaaq iyo Balanbal naga fogeynaya. waxaan idinka codsanayaa huurshe waa xaruntii diimeedkii xushmadda laydin siiyey inta laydin hayo walaalayaal arka ilaahay ka baqa fariduu ila Allahi wa rasuuli. dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa isku dilaya halkaa waxaan rabaa inaan kula dardaarmo tix yar oo aan waxa weeye tiiraanyadu iga keentay oo ay ugu dambeysay marka ugu dambayn mawdku uu dilo iilka la igu dado mid dardaaranoo diiwaanka gala dhaxal daa'im oo dadku igu xusaan degdega iga qora. daayartii waddankow madaxdeedna dambiyo difaacii shacabkow aayihii dalkiyo dugsigii ummadow u dadaala ciidiyo diintii arlada u dhinta diinta islaamka kalimatu laa ilaaha ila allah maxamadu rasuulullah iyo arlada u dhinta. waxa kale oo ninka danleyda ee politicianka ee raba siyaasadda madhalayska inuu inta qaato uu ku helo gorgorta dhiiggiina markaad daawacatiinna reerkiina laydiin celinayo markaad dhimatiinna aad waxa weeye alqaatil walmaqtuul walaalka la dilo muslina waxa weeye jizihiisu waa jahannaba. walaalayaalow dhalinyaroy war dhulka aad joogtiin geographically Ethiopia ayaa inay leedahay u qoran tahay. war dhulka maanta waa u jeediin war fiiriya waxa ku dhacaya hararihiina war shacabka Soomaali ahaan guud ahaan walaalayaalow Falastiin waxa ku dhacaya waa u jeediin. war ilaahay u mahadnaqa hal diin hal af hal luuq hal ummad baatiin waa isku diir waa isku dad waa isku diin waa isku caqiido madhabka shaaficiyada haysatiin sunni baatiin. war ilaahay ka baqa shacabka Soomaaliyeed. walaalayaalow nabad baaqaygu waa nabad. walaalayaalow gacmaha isqabsada. waxaan ka codsanayaa ninka raba inuu berrito dadka magacooda wax ku matalo war maantay nabadda nagala shaqee. anigu waan soo baxayaa Caabudwaaq baan ka degayaa haddaad igu qancaysin aniga idile. waxaan idin dardaarmayaa guul iyo gobonnimo. waxaan idinka codsanayaa inaad waxa weeye dabka dhigtaan. waxaan idinka codsanayaa aabbayaashin caqliga ayay isticmaali jireen caqligii iyo aqoontii dalkani cadow buu leeyahay. Soomaaliya waa triangle maantay si ay ku badbaadaysaba lama ogayaan khaatumadu idinka xumaan. walaalayaalow nabad baan idinkugu baaqayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.